قف غيري ما أهن ما قفي الله marka gafka waxa lagu qeexo ugu fiican waxa weeyaan in uu qofka uu sameeynin fikrad fiican ama ficil fiican oo ahayd inuu sameeyo oo uu garamaro markaas uu sameeynin oo uu garamaro taas way gafka mistake waa la yiraahdaa oo maarta afka qalaad mistake ama khata oo carabiga hatta sidoo kale wax ama fikrad xun aad ku dhaqaaqdo oo aad sameeyso iyadana waa gaf waa khalad weeyaan inteeba nooc qaybsamaa gafka saan sheegnay ceebna ma aha xumaanna ma aha qof kastoo bin aadama gafi kara marka intaas oo nooc uu ku imaado inaad ogsoonaatid hadhowna waxaan keeni doonaa treatmentiga ama solutionka lagu xalin karo si aad maaragtay uga faa'iideysato oo aad qof maaragtay aadan victim ku noqon laakiin victorious aad ku noqoto aad ku guuleysato khaladkaada hadhow mid ka weyn oo ka qurux badan aad maaragtay ku soo baxdo aad maaragtay aad ka faa'iideysato marka qaybta koobaad waan arrimo la ogol yahay waa arrimaan la ogol inta hadda aan sheegay 6 qaybood laakiin qaybta ugu muhiimsan ugu koobaad waxa weeyaan khalad ku imaado qofka markuu bilow yahay bin aadamka ba sidiisaba wax walba marka uu baranayo uu ku cusub yahay ama ha ahaato midna luqadda ingiriiska hadda aan baranayna ha ahaato ama ma ahaane ha ahaato ma aragtay gaariga sidoo loo wada baranaysan ama baaskiil sidoo loo wada baranaysan wax walba markuu bilow qofka uu ku yahay khaladaad badan uu sameeyaa uu ku khaldamayo uu gafayo hadda gaari marka baranayso kala traafiga badan waxa la traafiga sidii la raad u raacin ama gaariga sidii la raad u wadin marka gafkaas oo kale waa gaf expected ah oo qofka aan lagu dhaliiceen lagu caayin lagu dhiirageliyo oo loo qoslo oo leeyahay sii wad gafka kale oo imaada oo isaga dhaliilaysan oo maartay aan bin aadamku soo jeclaan waxa weeyaan midka ku yimaada carelesska ama lazinimada la yiraahdo qofka inuu careless macnaheedu lack of care qofka wixii uu yaqaan wax qof hadda wax baranaya ma aha laakiin wax himada uu siinaya ma lahba wax allaale wixii wanaagsanaa uu sameyn lahaa way dhaafayaan isagoon keergareyneen ama ma ahna caajisnimo isagoo wixii macnihii caajiska iyo waxa la yiraahdaa xadiis baa hadda ku imaaday allahumma inna a'uudu bika min al-kasli wal ajz ilo waxaan ka mangalay daalka iyo caajiska waan ka mangalay marka waxa loo kala qeybiyaa carelesska iyo lazinimada ama kasliga caajiska waxa weeyaan qofna wixii uu yaqaana aqoonteedii know how-gii wuu yaqaanaa laakiin ma samaynayo qofna wixii uusan aqoon wuu caajisay waa banjiray ma aqoonteediisu lahayn ama ma ahane effortigi iyo kartidii uu maartay buusan bixineen marka labadaba waa mid caayan marka mistake ku imaada qofka inuu ay ku dhaafto inuu mesela inuu iskuulkiisa aado ama shaqada aado waa arrin uu og yahay inuu maartay reerkiisa wax u qabto waa arrin og yahay laakiin care buu siinba markaas arrimo badan dayacmeen ama ma ahane juhdiba kuma bixinba laziness wax qofka inuu effort ku bixin wax isagoo wixii baran kara ama sameyn kara ama raadin kara wuu raadinba waa mistake dhac markaas waxa ku dhaaftay wax wanaagsanaa oo uu sameyn lahaa markaas ma artay dhibaato markaas ay ka dhalato mid kale oo imaado waxa weeye khaladka kale oo saddexaad imaado waxa waaye mid honest mistake ku dhac sida mid si daacadnimo ah qofka isagoon wala kac xumaana ka ramin hadda mesela waxa dhacda qof baad macallin baa u tagaysaa ama qof waayeel u tagaysaa waxa tala weydiinaysaa taladii markaa weydiiso inuu talo ku siiyo la arkaa taladii uu ku siiyo waxa laga yaabaa outcome-ka ama natiijadii sidii uu rabay si ahayna noqoto laakiin wax agenda oo qarsoona oo kale ma jirin waa honest mistake khalad iska dhaca waay uu dhaca marka adiga waxa kugu dhici kara arrin harti inaad sameeyso wixii aad rabtay waxaan ahayn baa kugu imaan kara kaasoo kalena waa wax dhaca isagana dhib ma laha wax honest mistake uu yahay qofkana loomana qabto lagumana qabsado midka shanaad oo imaado waxa waaye mistake ama khalad ku yimaada jahlinimo waa mid isagana caayan qofka wax buu sameeyey waxaan uu sameynayana aqoonteeda maba lahaynba khibrad uma lahayn dhib baa ku dhacday waana midka ugu xun waa qofku inuu wuxuu iska sameeynaa uusan aqoonin oo faraha la galo oo ma aragtay ama uu ka hadlo wuxuusan aqoonin jahlinimadiisa marka waxay keenaysaa waxa uu rabay inuu sameeyo intuu isdhahay hagaaji wax ka badan oo mafsada uu keeno isagana waa ma aragtay khalad imaada oo ma aragtay caayan ka midka ku xiga oo shanaad waxa waaye mid ay dhahaan ma aragtay qofka uninformed mistake inuu sameeyo xog uusan haynin
oo buu wax ku dhaqaaqay isagoon xog haynin buu xal iyo arrimo kale iska galay arrintaa markuu qofka sameeyo natiijo waxaa ka imaan karta khaldan haddii macluumaad uusan haysan ama macluumaadka uu haystay macluumaad khaldan ahaayeen waxaa ka dhalanaysa khaladkaas hadhow dhibaato kale ay ka dhalan karto badanaa waxay dhahaan soomaalida wadaad loo mas'alo xumeeyey waa jawaab xumeeya haddii qofka wrong information marka hore la siiyo waxaa laga yaabaa inuu isagana jawaab khaldan uu bixiyo iyadana waa misteegyada qaybta kale ku imaato waa qaybta shanaad ku imaato waay qaybta lixaad ugu dambaysa bada mistake ku imaado oo nooca kale ku imaado waxa weeyaan wax systematic mistake ay dhahan systematic mistake waxa weeyaan nidaam baad aad ku imaanaysaa nidaam dejisan badanaan wuxuu ka dhacaa xagga maaragtay ama ganacsiga ha ahaado ama xagga dawladda ha ahaado ama maaragtay xagga guriga qorshe nidaam u degan ha ahaado nidaamkiibaa ku hagaya nidaamka hadduu asal marka hore uu khaldanaa outcome-ka imaanaya mar walba uu khaldanaanaya wuuna kaa xoog badnaan karaa waana waxaa la yidhahda waxyaalaha ugu daran waa qofka frustrationka badanaa ku abuura maalan waaba xanuunsatay dhakhtar baa u tagtay dhakhtarku badanaa procedure iyo nidaam iyo system uu raacu leeyahay wuu ku dhageystay daawo kuu qoray daawadii markuu kuu qoray uu ku siiyey waaba kasii dartayba barar kale iyo dhibaato kale waxyaala kala soo baxday adiga waxa aad hadda victim u noqoto waa systemkii dhakhtarkii prescription uu raacay nidaam buu raacay waxbuu ku siiyey laakiin jirkaada meeshii response uu sameyn lahaa reaction uu sameynaya radul ficil uu sameeyey intuu maarta jawaabi lahaa uu qaadan lahaa radul ficil uu sameeyey marka way ku dhacdaa ama nidaam xagga dawladda ka imaan kara nidaamka marka isaga laftigiisa marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu nidaamka uu fahmo wixii nidaamka laga bedeli karana hadduu isaga awoodeeda leeyahayna uu ka bedelo hadduuna ka bedeli karinna uuna isku dhibine system kaloo system ka fiican u wareego uu aado waxa weeyaan inta hadda aan soo sheegnay waa khaladaadka imaada marka hadduu khalad dhaco waxaana dhahnay arrintaa lama dhaafi karo waa tii dhacda khalad waa kii dhaca waa imaanaya shi kuma jiro khaladka marka dadna victim bay ku noqdaan ama environmentiga iyo dadka ku jirta ha ka dhigaan victim oo khaladkii intii lagu dhaliiceeyo lagula dagaalamo lagu duro maaragtay qofkii uu curyaamo oo maaragtay wax alaal wuxuu qabsan lahaa uu qaban waayo oo cajis iyo kaslaan ay ku imaato ama ma ahane inuu yiraahdo saxda sheegnay war gafku iyo khaladku ilaa aabahay aadan buu soo jiray inta bin aadam noolahan waan gafeynaa wixii gafkii intuu arko uu yiraahdo war haddaana dhiman aniga waa dhaqaaqaya wixiina waan saxaya uu sameeyo marka si aad gafkaada uga faa'iideysato adoonan maaragtay iscalool xumaynin isniyad jabinin maaragtay jeel maaragtay aad isgelin oo gudaha ah jeelka ma kan darbiyada arkeeno qofka isaga jeel isgelin kara naftiisa dhex isgelin kara taas uga badbaado marka waxa sameynaysaa shantan qodob kale ku sheegay